jaliila sane jawhar baanahayo ninkii jahlaba ijeedaliye salaadii soo dhaweyntu maanta xagaaga weeya dadka soo dhaweey oo salaan marka hore dadkan waxaan ku soo dhaweeyaa saalkan ku soo dhaweeyaa degelkii aynu ku lahayn mareegta YouTube ayaad ku soo dhaweynaysaa iyo goobtii aynu dadka ugu gudbin jirnay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warba soo dhawaada dhamaanteen meesha aday lagu yeedhaan qabanay ana kala reebina maanta maxaynu rogrognaa maxaynu inoo muuqda muuqaaladeeni aan ugu talagalay in aynu dadka halkan maalmo ugu soo gudbino waxaad inoo haysaa maanta jawharatul maknuun lana ayaynu maanta ka hadli doonaa insha Allah bal marka adaad noo yara jilicso maxay noqonaysaa wad malaynaysaa qaar badan baan dee malaha وفهمليهنا ملقاها يا شرفت له يا شرفت إياك ما مكحن بارسن maxaad ku keentay maanta inaynu ka hadalno halka iyada ah oo aynu meel kale uga falaqayn weynay ma wax godololo ah baad ku aragtay hayo bariyahan dambe waxaan maxay ahayd tolo ishuna arki karin dhigtuna aanay dhageysan karin ayaynu arkaynaa ka soo baxbaxaya qaar ka mid ah waaye sidee ayaynu u galaa marka bal qaab nooceeya maxaynu ka hadalnaa maxaad aragtaa maxaa kuu muuqmuuqda waxaan ka eegi doonaa isbarbardhig hayno isbarbardhigaas oo noqon kara sida maxay oo kale isbarbardhigaas oo noqon doona qiimaha iyo sharafta iyo kamaamka iyo milgaha waxay hablihii hore u arkayeen inay sharaftu waxay ku dhimanayso iyo waxay ku noolaanayso ay garanayeen iyo kuwan maanta say u arkaan oo la muuqato waayahay anigu hadda waxa aan maxay ahayd tooley xaggooda raacsanahay ama aan la jiraa ama aan wax ka odhan doonaa in jawharatul maknuunka aduna waxaa ka odhan doontaa dee jawhartaasoo bilaa maknuun markay noqotay dee dhehe ka dhacay kale intaasan meesha soo fadhiyaa maan wax kala haya ansax waayahay kolley waxaynu maanta in dooro asiira dul taagi doonaa ama aynu wax ka odhan doonaa sidaa la inoo sheegay jawharatul maknuun lana jawharta qarsoon ee innaga inoo sugnaatay iyo hablaheena qaaliga ah haddii aynu waxooga yaro eegno maxaa isbedelay maanta waaqicaan arkayno sababaha ugu waaweyn iyo waxa isbedelay la arki karo labada ayaynu isdul taagaynaa adigu maxaad u malaynaysaa waxay muuqateen labada qodob uun falaqayno rogrogno labada qodob uun baynu hareeraha ka eegi doonaa waa qodobka koowaad ee horta isbarbardhigan ku horeynaynaa qablihii hore ee aynu naqaanay ee sharafta iyo kamaamka lahaa ee marka guur iyo marwo loogu talagalo inay noqdaan inan gayaankooda usoo kaankaansado usoo fidhimaysto ee filimka usoo qaato maxay ahayd tole qiimigooda la yaqaanay ee boqol beer madow baarqabkii wata barbarka lagaga jiro kambalka lasoo tugi jiray iyo kuwa maanta aynu arkayno waxaa ku dhacay maxay ahayd tole iyagoo hablihiiun ah labadaa dacal baynu ka eegaynaa bal hadda adigu maxaad kula tahay wax kale leeyahay adigu inoo bilowday hadda adigu bilaynoo furfur qaybta hore waayahay anaa inoo furfurayo haddaynan meel kale usii gudbin waxaynu odhan karnaa laba meeris ayaynu kuwaasina waxay maanta leeyihiin saynu ogaana bal qiimahooda iyo halkay joogaan kuwii horena waxay lahaayeen iyo qiimahooda halkuu joogay ayaynu ku maxay ahayd tole cabiri karnaa ama aynu kusoo dhaweyn karnaa sugaanta waxyaabaha ay midhahay faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah marka aad maxay ahayd tole hadal fara badan oo maanta oo dhan kaa baahi lahaa ayay kuu soo koobaysaa hablihii hore jawharatul maknuuntii hore dheemantii qarsoonayd maxay ahayd aan cid waliba iska farafarayn jirin cid si gaara ugu dhididay ay maxay ahayd tole jabsan jirtay ama la soo bixi jirtay ama qodan jirtay markay naftooda ka hadlayaan waxay odhan jireen jaliila sane jawhar baanahayo ninkii jahlaba ijeedaliye kuwan maantana xaaji maxay leeyihin sidii bushahan hawada babado beerkay lulmaye halkan barkada waaya labadaas waxay isu keen barbar dhigeen bal inantaa iyo inantan miyada isbedeshay jilkeeda wax laga bedelay oo inantiibaa inan kale noqotay oo koobi noqotay antii hore ahayn mise wax kale ayaa jira isla maxay ahayd tole haddana maanse kale ayay kuwan maanta kugu jawaabayaan warkoodii kooban haddaba warkoodii kooban oo koombeer ku jira ayaguna kugu jawaabayaan oo maxay ka odhanayaan intay inan weyn oo sharaf iyo kamaan leh oo milgo iyo maangashi leh soo istaagto ayay waxay jawaab kaaga dhigaysaa anigoo jamaalkiyo joogayga gadi kara anigoo jidhkaygiyo xubnahayga jaraqliyo
jufalayda hoosiyo jeexii la qarin jiray hadba jeer u dhigi kara inta jiil koraysiyo jeer dambe kuwii iman hadba jeeni shulukhiyo sararaha u jari kara maxaa dheeman jaan iyo jawharta qarsoon iyo iga dhigaya janjaluul maxaa jawharta qarsoon iyo iga dhigaya janjaluul dadku aanu jari karin anigoo intaasoo dhan samayn karo oo waxaasoo dhan muujin kara maxaa luul iyo dheeman gadowga ii suraaya aanay cid kastaaba jari karin balwadaasada ka jawaab iyaga oo aad arkayso meesha ay kusii socdaan iyo inay jahanama jilbaca u saaran yihiin naahuurana kusii oloorahayaan ay haddana taa daldalayaan ay waxaa akhriyayaan hablaha sharafta iyo kamaan kale ee milguhu ku heeriyeysan yahay maxaa yeeto hagoogtay milgaha marka ay uga jawaabayaan tooda iyagoo jawaabtooda ku caloolsan oo wax ay niyaddooda iyo kashkoodii laabtooda kasoo goda ay tahay wax iska samaysuska yeliya la-aan ay ahayn ay waxay odhanayaan anigoo jaliilkay joogsan doona jaahi jaxiimada huraysiyo jidkii jimic la'aaneed la noqon doona jaalo solmi doono jiirhkani jawhartayda joogiyo jahoradayda guud iyo xubnahaygan jaraluul inaan simo jilbaabo qumanuhu jaliilkay ugu jookhay mooye maxaan ugu jalaqlayn jiilasha adduunyaad anigoo og waxaa iga dambeeya inaan ilaahay hor joogsan doono la kulmi doono su-aalihii weydiin doono ilaa aan ka jawaabo aniga ka dhaqaaqi karin halkaa jaxiima iyo naahuure iyo saqarane iga dambayso maxaan xubnahayga ilaahay asturay ee yidhi halkaa maxay toole saamariyo saadheh meeshuu ilaahay ugu talagalay iyo ilaahay qumanaha iyo halyeyga uu qoorta ii gelin doono ee nolosha aan la qaybsan doono jeexla noqon doono mooyaane isagoo kaasoo keliya uu jawhartaydan iyo dheemantaydan iyo luusheedan kala daldalan doono aan wada wadaagi doono oo aan taa u hayo maxaan dee jiilka soo koraya iyo kan maanta ila joogay ka soo kori doonaa midba qurub iyo jeex iyo wasada ugu goyn doonaa midba jis u siin doonaa bal daawadii sharaftooda kamaamka ay leeyihiin hablahaas iyo waxay ku hardaldalayeen intaas waxaynu ku eegaynaa qiimaha ay hablihii hore ku cabiri jireen noloshooda iyo waxay u arkayeen sharafta iyo kamaanka iyo kuwan maanta siday u arkaan iyo waxa iyaga u muuqata sababta ugu weyn ee keentay inay maxay tole ku hor nolosha saa u arkaan kuwan dambena saa u arkaan dee laynoo baahfaahinayo iyo wixii aynu ka odhanayno ee soomaali jiricsana mala maanta suugaanba sararaha laydinku jiray oo seefbaa laydinla dhex qaadaye waxaanu iyagana ka qabanaynaa barnaamij gaara oo aynu dadka caqliyadooda kula hadlayno malaha dee dadku markaa xagga diindin iyo dhaqan loo kaco waxay u arkaan waxyaabo aan la jaan qaadi karin hadba jiilkii soo koraya ee markaa jire inagoo caqli ula hadlaynay maskaxiyan ayaynu barnaamijkan ka xiga ama muuqaalka xiga kusoo gebagabayn doonaa aniga xaaji su-aal maanta waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu